maalin wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibna janaalkeena ee badweyn Thiyub qodobada wararka ugu waaweyn maanta aad ku daawad noqotaan waxa kamid ah ciidamo ilaalo gaar ah Ra'iisul Wasaare Khayre oo gaaray magaalada Dhuusamareeb wafdo hogaaminaya Ra'iisul Wasaaraha oo magaaladaasi ku wajahan Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya warka soo saaray afgambiga dhicisoobay gobolka Maxaarida iyo madax ka tirsan Itoobiya halka lagu qaarijiyay muran xoogan u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya wasiirkiisa arrimaha dibadda muxuu salka ku hayaa warka ayaad ku daawad doontaan madaxweyne xaafna safiirka Mareykanka ayuu u yeeray Puntland waxay ku soo biirtay xiisada ka jirta Dhuusamareeb warbixino gaar arrimahaas ku saabsan ayaa daawad doontaan kulmad degdeg ah hadda ka soconaya Dhuusamareeb iyo xaalado si cakirantay warka durmaad ku daawad doontaan xaaladii ugu dambeeyay Dhuusamareeb dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday go'aan ka farxad geliya dadka ku nool caasimada muxuu yahay go'aankaas waa daawad doontaan iyo madaxweynaha Galmudug oo iskaga baxay Dhuusamareeb asagoo ku wajahan magaaladii uu ku dhashay ee Galkacyo u daar garoobo qodobadaasi kuba kale inaad ku daawataan wararkeena duhurnimo saaxiibayaal waxa soo hormaraya warka la xiriira ilaalada gaarka ee Ra'iisul Wasaare Khayre oo ku wajahan oo gaaray magaalada Dhuusamareeb iyo wafdo hogaaminaya Ra'iisul Wasaaraha oo asna la filayo saacadaha soo socdeen halka uu ku biiro Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa la sheegay inuu ku wajahay magaalada Dhuusamareeb caasimada Galmudug wararka ayaa waxay sheegayaan in wasiir Sabriye oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya halkaas jimciye u gaaray xalinta xiisada siyaasadeed ee Galmudug ka dhaxaysa haasayeesha warar soo baxay waxay sheegayaan in wasiirku ku guuldareysay ila madax banaan ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaaraha uu doonayo in uu la fadhiisto marka uu tago Dhuusamareeb madaxweyne xaaf balse lama oga sida ay wax noqon doonaan wasiirka tan iyo markii wafdigu horkacay oo ay gaareen Dhuusamareeb ayaa waxa la tilmaamay in xaaladdu ay sii cakirantay madaxweyne xaafna uu diiday kulanka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya xaalka ayaa meel culus gaaray iyadoo ciidamada la taabacsan madaxweynaha Galmudugna la isku dayay in magaalada ay soo galaan taas oo ugu dambeyn suurto gelin ahlo sunnada gobolada dhexe oo ku biirtay Galmudug oo heshiiskii ka dhacay Djibouti ayaa hadda moodaa inuu burburay xaafna oo kaligiis ah meel cidla oo ku soo dhacay qodobada kale wararkeena ku jirana daawadayaal waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu ka hadlay afgambigii dhicisoobay gobolka Maxaarida iyo madax ka tirsan Itoobiya oo la sheegay in lagu qaarijiyay halkaas afgambigii dhicisoobay ee wadankaasi Itoobiya warar dheeraad ayaa ka soo baxay afgambigii dhicisoobay ka dhaxay gobolka Maxaarida ciidamada ammaanka Itoobiya ayaa waxay xabsiga u taxabeen dad lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen afgambigii gobolka Maxaarida weerarkan oo dhacay Sabtidii shalay ahayd ayaa waxa lagu dilay madaxii gobolkaasi ee Maxaarida ninka la yiraahdo Malcolm iyo waliba la taliyihiisa gaarka ah dableedan aan la garanayn ayaa toogasho waxay ku dileen mas'uulka ugu sareeya gobolkaasi Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Itoobiya Abiy Ahmed ayaa cambaariyay falkan wuxuuna uu sheegay in dadka waxyeelada soo gaartay ay kamid yihiin saraakiil sarsare ku jira la taliyihiisa dhanka ammaanka iyo waliba madaxii gobolka Maxaarida ay uu sheegay in ay qayb ka yihiin dadka halkaas ku dhintay Abiy muusan xaqiijin in la dilay taliyaha iyo waliba saraakiil kale iyo in kale oo dhaawacyo soo gaaray balse xogtan oo warbaahinta waxa uu sheegay in baaris uu leeyahay socto mas'uul ka tirsan xisbiga Tigrayga ayaa oo isbahaysi wadaag yihiin xisbiga talada haya dalkaas oo qayb ka yahay Ra'iisul Wasaaraha ayaa warbaahinta Maxaarida waxa uu sheegay in uu dhacay dil saraakiil muhiim ah halkaas lagu dilay dadka ku dhaqan gobolkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in wali laga baqdin qabo in halkaas dagaal uu ka dhaco si kastaba ha ahaatee dowladda Itoobiya ayaa heegan buuxa waxay gelisay ciidanka ammaanka ee la xiriira guud ahaanba wadooyinka gobolkaasi ku sugan khilaaf xoogan waxa la tilmaamayaa inuu soo kala dhaxgalay madaxweynaha Soomaaliya waliba wasiirkiisa arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasiir Cawad madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waliba wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxa dhexmaray dood ka dhalatay go'aanka Kenya looga dhigay kooxda xiriirka caalamiga ah ee qaabilsan burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya dowladda Kenya xiisadan u dhaxaysa madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxay salka ku haysaa dowladda Kenya iyo waliba sida ay ugu soo biirtay kooxaha ilaalinaya xeebaha Soomaaliya Kenya ayaa hogaamin doonta dadaalada caalamiga ah ee ilaalinta xeebaha si ay dusha looga socdo dhaqdhaqaaqyada amniga oo muddo 2 sano ah ka bilaaban doonta bisha Janaayo 2020 sidaan xogta ku helnay madaxweyne Farmaajo ayaa ku canaantay Cawad inuusan ishor istaagin in Kenya ay madax ka noqoto gudaha xilli labada dal u dhaxeeyo khilaaf xoogan oo ka dhashay biyaha badda Soomaaliya sidaan xogtaan ku helnay hadii ay Soomaaliya diidmo ka dhana Kenya u gudbin lahayd qaramada midoobe Kenya lama ogolaan lahayn inay madax ka noqoto kooxdan hase yeeshee waxa la tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ilaa hadda arintan aysan ka hadlin
ilaa iyo hadda ma cadda sababta wasiir Cawad oo kaga aamusay arrintan oo xubnaha dowladda qaarkoodna ay ka aamusan yihiin in qaladka wasiirka arrimaha dibadda uu sameeyay arrin muhiim ah oo ka aamusay loo baahnaa in qaramada midoobay loo gudbiyo si ugu yaraan dowladda Kenya looga saaro liiska. wasiir Cawad ayaa waxa qoyskiisa ay degan yihiin Kenya waxaana inta badan wasiirka la tilmaamay inuu safro magaalada Nairobi isagoo oo haatana 3 bari ku sugan magaaladaasi in ka badan. muranka dhinaca badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo soo jiitamay waxaana sanadkii 2015 dowladda Soomaaliya maxkamadda caalamiga ee adduunka ay u gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya. dacwadan oo ku saabsan muranka ayaa hortaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ taas oo loo hordhigay maxkamadda go'aanka ugu dambeeyana laga sugayo inay soo saarto dabeeqada ama dhamaadka bisha soo socota. qodobada kale wararkan ku jiraan daawadeel waxa kamid madaxweyne Xaaf waxa uu yeeray safiirka Mareykanka Puntland waxa la sheegay in markaan ay ku soo biirtay xiisada ka jirta Dhuusamareeb wararkaas ayaan eegaynaa. madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa la sheegay inuu diiday la kulanka wafdiga dowladda ay u dirtay Dhuusamareeb isagoo mas'uuliyiinta kale ee galmudug ka dalbaday in ay wafdiga dowladda ee xamar ay ku laabtaan haddii kalena uu asaga Dhuusamareeb uu ka soo tagi doono. xildhibaano ka socda baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinkan ayaa la sheegay in haatan ay ku jiraan xalinta xiisada siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxda sare ee galmudug iyo waliba xukuumadda Soomaaliya. qaar ka mid ah xubnahaas oo wada hadallo kula jira madaxweyne Xaaf iyo waliba xukuumadda ayaa waxa ay sheegayeen inaysan jirin wax kasoo naas cadaaday dadaaladooda isla markaana ku aadan in madaxweyne Xaaf wali uu diiday la kulanka wafdiga dowladda ay u dirtay waxaana rajo xumo ka muujiyeen in is hor fadhiistaan xukuumadda iyo waliba madaxweyne Xaaf. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dane ayaa la sheegay inuu garab istaag u muujiyay madaxweyne Xaaf asaga ayaana sheegay in ila wareedi lagu kalsoon yahay in uu ku marti qaaday inuu iskaga soo baxo magaalada ama madaxtooyada galmudug ee Dhuusamareeb. sidoo kale warar hoosaan helin waxa ay sheegayeen madaxweyne Xaaf oo xiriir la sameeyay safiirka Mareykanka ee u fadhiya Soomaaliya isagoo kala hadlay beesha caalamka faragelinta dowladda Soomaaliya ku hayso maamulkiisa. dhinaca kale ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda Saciid Siyaad oo shalay laga celiyay deegaanka Liiragudi Labe ayaa waxa la sheegayaa inay soo gaareen meel yarar Marguud oo qiyaasay 28 kilomitir Dhuusamareeb u jirta. wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in deegaankaasi ku sugeen ciidamada wata wasiirka maaliyadda ayna doonayaan in gudaha u soo galaan magaalada Dhuusamareeb. hase yeeshee war degdeg ah hadda naga soo gaaray Dhuusamareeb waxay sheegayaan in madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ugu dambeyn magaaladaas iskaga baxay safar dhanka dhulkaana kaga baxay magaalada Dhuusamareeb. madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa iskaga baxay magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulkaasi. Xaaf oo aan ku qancin wada hadallada u socda dowladda iyo Ahlu Sunna ayaa maalmihii dambe lagu celinayay Dhuusamareeb sida uu qayb kaga noqdo wada hadallada balse Xaaf ayaa arrintaasi marna ka biyadiiday. madaxweyne Xaaf ayaa la xaqiijiyay in halkaas iskaga baxay waxaana jidka ku sii sugaya ciidamo badan oo hogaaminaya wasiirkiisa maaliyadda Saciid Siyaad oo shalay aysan u suurtagelin in Dhuusamareeb gudaha u soo galaan. wararkan helina waxa ay sheegayaan in ciidamadan iyo waliba xubnaha kale ee madaxweynahaba horkacaya ay safar dhanka dhulka ay ku mari doonaan magaalada Cadaado kadibna ay kaga sii gudbi doonaan koonfurta Gaalkacyo halkaas oo la filayo in madaxweyne Xaaf uu saldhigto. wixii waraa ka soo kordha arrimaha galmudugna isla wararkan aad ku daawan doontaan. ugu dambeyn dowladda Soomaaliya waxa ay go'aan farxad geliya dadka ku nool caasimadda ku dhawaaqday in ay soo bandhigi doonto. haddaba waxaan eegaynaa warbixintan oo wararkan aan ugu dambaysiin doono. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ku dhawaaqay go'aan farxad geliya dadka ku nool caasimadda waxaana sheegayaa in wasaaradiisu ay wado qorshe wax lagu bedelayo amniga caasimadda. wasiir Ducaale ayaa tilmaamay in la yareyn doono xirnaanshaha wadooyinka caasimadda isla markaana dowladdu ay furi doonto inta badan jidadka xiran. muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dadweynuhu ku nool caasimaddu ay dhibaato xoog leh ku qabeen xirnaanshaha wadooyinka. waxaa sidoo kale wasiirka inta uu raaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay la imaan doonto qalab casri ah oo lagu xaqiijiyo ammaanka.
wuxuuna ballanqaad buuxa uu sameeyay oo la xiriira jidadka in la furi doono sidoo kalena ammaanka la xasili doono dhinaca kale isla wasiirka amniga Soomaaliya iyo waliba wasiirka xubnaha kale amniga oo qaabilsan ayaa ka codsaday shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka dawladda si looga hortago falalka lidii ku ah nabadgelyada inta badan wadooyinka waaweyn ee caasimadda ayaa waxaa lagu xiray dhagxaanta waaweyn ciidamaduna waxa ay ku amrayaan in gaadiidka iyo dadkuba ay kala wareeg yiraahdaan warbixinta say ugu dambeysay guud ahaan wararka aad ka daawanayso janaalkeena ee badweyn siyub guud ahaan saaxiibayaal halkaas oo ku soo gogobeyna inta warkan mid xiyaan ku kulmino nabadgelyo